in ka badan 11 ayaa ku dhimatay halka ay ku dhaawacantay 20 qof dagaal ka dhacay shalay deegaanada ku teedsan xadka Oromada iyo Soomaalida. Haddaba banaanbax ballaaran oo la xiriira arrinta ayaa maanta ka dhacay magaalada Jigjiga kaas oo looga soo horjeedo weerarka ay ku soo qaadeen ciidamada Oromiya degmada Tulli Guuleed iyo nawaaxigeeda. anigu magacaygu yahay Raxmaan Cali xaggan taagan halkan maanta aan isugu soo baxnay dadka inta faraleey waxa weeye waa dadkooda la xasuuqay ciidamada Oromiya iyo militariga iskaashanaya ay weerar ku soo qaadeen weerar aan loo kala xidhin dawladda Oromiya militariga Itoobiya gabi ahaanba ay ku soo qaadeen dadkayga ay ku soo qaadeen ayaan markaa bacad u taaganay madax ilaa hadda wax dadka isku yimid ilaa hadda cid u timid oo mas'uuliyiina oo la hadashay ma jirto lixdii saaka ma soo baxnay bacadkaas aanu taaganahay wadadii Tulli loo marayaan taaganahay waxaanu doonaynaa halkaan lu kuma sababtana soo saartay maxay tahay Mustafa Cabsir shalay casarkii intuu noo yimid ayuu balan noo qaaday wuxuu nagu yiri gabi ahaan wixii dhaawacmay iyo meedkiini waa la idin soo qaadaya aas qarana waan samaynaya maanta saacadu waa 12 xilliga wax jawaab kama hayno xabaalihii baan tubanahay maxay ku dhacday Mustafa Cabsir maanu ummadan madaxweyne oo hay kaliya shanaad maanu soo waxaan weydiinayaa Mustafa Cabsir kaliya shanaad adigu ma aragtay baaq waan u diray Mustafa Cabsir waxaan leeyahay nin kula mid adiga oo dhigaaga oo Oromiya xukuma lama magasa soo ninka Oromiya xukuma ma ya ninka dadkiisa shacabkiisa intuu soo hubeeyay oo militarigiisa hubka ka dhigay oo ka dhigay diriski uu ka soo qusaaday shacabkii uu yiri waa shacab dagaalamay soo diray ee dhulkaaga dhexdiisa kugu haysta ee jigjiga duleedkeeda ku dagaalamaya adiga ma damirki baa laga qaaday xadsiga in wada Mustafa ninka waa qayrka halkaad haysato haysta Mustafa su'aal baa weydiinaya Mustafa waxa leeyahay ma sidii la sheegay ma qori baa lagu hayaa noo sheeg hadii qori lagu hayo aan ummadda ka hadli karin dagaalka shalay lagu soo qaaday deegaanada kala ah Sandacare geed caanood agaajiin dhuxulaley quri qayro feera cadde iyo sheekha madow ayaa khasaare lixaad leh u geystay deegaanadaasi dhanka kale ciidamada militariga Itoobiya ayaa lagu eedeynayaa inay dileen madaxafiiseedkii degmada Tulli Guuleed kadib markii uu isku dayay inuu saraakiisha militariga ka codsaday inay wax ka qabtaan ciidamada maamulka Oromiya ee weerarka ku soo qaaday deegaanada Soomaalida waxa kale oo militariga lagu eedeynayaa inay ishortaageen gurmad u socday goobta dagaalka oo ka socday oo dhinaca Soomaalida kaas oo markii dambe sababay inuu dhex maro gacan ka hadal shacabka Soomaalida iyo militariga goobtaasi ku sugnaa ma jiraan wax wara oo ka soo baxay dawladda dhexe ee Itoobiya iyo labada maamul ee Soomaalida iyo Oromada oo sanadihii ugu dambeeyay dagaalo soo noqnoqday dhex marayeen arrintan oo la isku dayay marar badan in la xalliyo ayaa ilaa hadda wax natiijo ah oo sax ah laga gaarin haddaba su'aasha isweydiinta leh ayaa ah maxay dagaaladan go'aan uga gaari weyday xukuumadda cidda dagaalamaysa ay dhammaan laga maamulo ama hoos tagaan magaalada Addis Ababa ee fadhigeedu yahay xarunta dhexe ee Itoobiya afayeenka ONLF Cadaani Hiirmooge ayaa shalay kulan gaar ah la yeeshay madaxweynaha maamulka Oromiya Lama Magarsa taas oo ay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyay ee dhaxmaray labada qowmiyadood ee Soomaalida iyo Oromada waa waxaan taariikhdii hore waxa laga dhaxlay cid kale ma sheegay Soomaali buu sheegaya dhulkana Soomaali baa degta
shacabkuna waa Soomaali magacana dib noqon maayo wax kasta oo dadka Soomaaliyeed ka dararsiinaya ama isu keenaya waanu samaynaynaa laakiin magacayagu cid gooni ururkana cid gooni ama dirro way Soomaalida gooni Soomaalida hal dad weeye marka yaa laga sii yahay waxa laga sii yahay ma jiro dhulku ma ka hooseeya dad hoos u dhacay marka sidaa weeye maanta waxaa kaloo kulan la yeeshay madaxweynaha gobolka Oromada arrinta dadka Soomaaliyeed iyo dagaalada Soomaalida ma ka hadlayay u dambeeyay talooyinna waan isla qaadanay oo muxuu ahay arrinta xal u keenaysa madiidaynayno doodanaaya waa dalkaygiyo baarcadaydo madiidayna dib u heshiisiin madiidayna nabadda dalkeed madiidaynayno doodanaaya waa dalkaygiyo baarcadaydo waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa allahayow deeqadaale allahayow dulqaadadaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee allahayow deeqadaale allahayow dulqaadadaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee